haatana waxaad ku soo dhowaataan dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaajaha oo soo jeediya waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal tilmaantu waxay ka mid tahay tiirarka culculus ee maansada shiiqsiga leh lagu jecel yahay mar iskeed bay u taagan tahay oo ujeeddooyinka kale way ka madax bannaan tahay mar kalena tu walba ayay ku laran tahay sidaa darteed bay tilmaan quraaxu weligeed u ahayd waxa ugu weyn ee maansayahanadii soomaaliyeed lagu kala saari jiray gabyaagu markuu calaacalaayo waxaa laga filaa inuu si wacan u tilmaamo murugadii uu xalay la gami waayey siduu raago ugaas yeelay afadiisii faadumo habeenkii libaaxa diihaalsani uu ka qaaday markuu qof ama ka badan waaninayo waxaa gabyaaga laga rabaa inuu tilmaamo waxaa haddii laga qaato ay waanadiisu ku filan tahay iyo haddii laga diido sida loo eedi karo markuu dad guubaabinayo wuxuu ku qasban yahay si dareen taabad leh inuu u tilmaamo sababaha ay guubaabadiisu u mudan tahay in siduu rabo looga falceliyo taas iyadana waxaa tusaale wacan u ah maasadii sayid maxamed uu daraawiish ku dagaalgelin jiray ee marka ay maqlaan inta suufiyoodaan oo ismadax maraan ay hubka boobi jireen intaas iyo ka badanba waa tilmaantu mararka ujeeddooyinka kale ee maansada ay u adeegayso ha yeeshee bilowgiiba sidaan ku soo sheegay waxaa jira kolkol ay iskeed u taagan tahay oo gabyaagu u jeedo oo keliya inuu tilmaamo dhacdo uu u soo joogay ama faras cagabadnaantiisa iyo dharankiisa uu la amankaagay ama sidoo kale inan dhaban leh oo bilicdeeda uu la ashqaraaray saddexdaba waxaa tusaale wacan u noqon kara gabaygii ismaaciil mire ee ka bilaaban jiray annagoo taleexna al-shahaad taladii soo qaadnay geeraarkii raago ogaas uu faraskiisii weyrax ku ammaanay iyo gabaygii cali cilmi afyare uu ku tilmaamay bilicda gabadh uu safiye cismaan magaceeda ku sheegay dagaaladu markay tolalka soomaalida ka dhex dhacaan goob walba dabadeed wuxuu gabyaagu tirin jiray tixa uu ku tilmaamayo siday wax ku bilowdeen dhinaca uu ka soo jeeda sidii looga gardaraa raggii ay gabawareen gabagabadii ay dhigeen xabaadhii ay taabeen siday u saanyadeen iyo wixii kaloo uu ku dari karo oo run ama hafadyo ah gabayada jaadkaasa oo tiro badan aan maanta ku tusaaleeyo tixuu tiriyey gabyaa geeltirana ahaa oo cabdi faarax diiriye magaciisa la igu sheegay wuxuu cabdi tilmaan faahfaahsan inaga siinaya dhacdo aanu filayn asii la soo gudboonaatay waa kaldambeedoo waa hogo kaliileed waa gamashi roobkii nuurka ayaa xilliguu di'i lahaa la joogaa wuu soo yeelyeelanayaa oo cirku dhowr cishaba ma qaawanayn welise shuuxshuux kablakaca mooye daruuruhu inta burureen dhulka ma maaruqin kollayse la fili maayo ballida oo ay dhacaan ha joogtee in kalkan wixii ka dambeeya ceesha xoolo loo aroorin doono iyada oo arrin ay sidaa tahay ayaa maalin kaliishaa ka mid ah cabdi iyo dhowr kale geeloodii inta ceelka ka soo shubeen soo fuliyeen cabbaar kadibba dhulkii uu daaqi jiray ayuu soo galay oo cawskii afka saaray waa gabalgaab wax dhiilla ahi ragga kuma jiraan waa iska sheekaysanayaan oo way isxifaalaynayaan ha yeeshee waxay si kedisa ugu war heleen jaanqaad gurdan iyo bulaan rag show waa col geeldoona oo isugu jira qaar qoryale oo haddiiba bilaabay in xaggooda ay rasaasta u soo ridaan iyo in kale oo waranla ah nasiib darro haddiiba nimankii geela lahaa dhowr baa laga dilay tiro kale waa laga dhaawacay intoodii soo hadhayna inta fulayoobeen ayay cagaha wax ka dayeen markii dambese siduu gabyaagu ku andacoon doono waxaa goobtii isugu soo haray isaga iyo nin kale iyo colkii soo duulay oo geelii wata inay guulaysteenna isugu hambalyeynaya
dambase isuguma kaa toostee soo kuwii fulayoobay oo marada tuuraaya ayaa ku dhex dhacay degmadii geela lahayd ee markii horeba uu ka soo arooray. markaas baa wixii rag joogay geelii la qaadiyayaa maali jiray isugu qayshaday. qalab dagaal wixii aqalada ku kaydsanaa baa lagala soo baxay. ciidan fiican oo fardo dheereeya ku jooga markay isla heleenna waddada ayay cagta saareen. siday mar u ordayeen, mar kale u ruclaynayeen, mar saddexaadna tallaabada hoosta uga boobayeen bay dayax bay ahayde goor dambe waxay soo gaareen geelii oo weli gacantii colka ku jira iyo labadoodii nin oo daba jooga. markiiba xabadda ayaa la isku qasay. labada dhinac midna rasaas badan ma haysane kolkay ka dhammaatay baa warmaha la isula tegey. wax yar kadibna nimankii geela qaaday baa rabbi garabkoodii ka baxay. inta laga gol roonaaday baa laga dhacsaday. dhowr nin oo ay u naafteenna waa laga makalay. dacdadaas haddii dhowr toddobaad laga joogo ayaa cawadii dambe iyadoo golihii geela lagu cawaynayo waxaa cabdi faarax lagu yidhi, maxaad cabdow ka tidhi adiga iyo kooxdaada geelii la idinkala tegey iyo markii dambe sidii aad u soo dhacsateen? kolkaas buu wixii dhacay tilmaamay, isaga oo magac dhabaaya colkii ku soo duulay raggii ay ka dileen, isla markaasna aan qarinayna sheegaya magacyada kuwii iyaga qudhooda goobtaas looga gabawaray. wuxuu yidhi, caad da'ay, cirkood soo unkaday goor casara maalin, iyadoo carrawtiina oon ceel ka soo fuliyey ay cawska meeshii lahayd caasha soo gelisay. cabbaar gibina goortay sifaar yara cantuugaysay cadceeddoo gabaabsiya, kolkuu canugu soo tuunshay awaweerta goortay waddada cagaha soo saartay colaannaan filayn, iyo kolkay weerareen cadowgu ay caadad dhuubnagu rideen cuuraan garan waaye cali, iyo markii jaamaca gurayd cududda naafaysay ee cumar keliyaha ay jartee cadowgu naafeeyey. waa caadadiisii kolkuu fulay iscayntaarshay goortay cabbaar nagu qaseen maalihii ciyayey ani iyo caalin oo qura markii cudud naloo sheegtay ee nalaga cayrsaday ma hayn ciidan daafaca ah. dabadeed maxaa dhacay? kuwii cararay qaylo ula taga cida aan dheerayne anoo caadil baa hiiliyee cabanayoo liita oo ay cawo iskiitahoo caawin la eryaayo caddaysimo fardaah niman watiyo cayna baa yimi iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile. anna cuunka kaga soo baxay oo caawiyoo ridaye cabdilaahi iyo diiriyi iyo cumar markay leeftay ee caaqilkii maxamed iyo caliiba geeriyooday ay caarsho bawdada jartay ciirsadeen orada buud. cawad baan la soo haray intaan cayrshay nimankiiye anoo caafimaad qaba ninkii dheeha col u keenay cimrigiisa sow inuu marsaday ma ay caddaan caawa. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. mahadsanidkaas wuxuu ahaa axmed faarax cali idaajaha oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.